Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan ka hadlaynaa maanta wareegga dayaxa. Dayaxa wuxuu ku wareegaa hareeraha dhulka. Dayaxa inuu wareeg dhammaystiran ku sameeyo hareeraha dhulka waxay ku qaadanaysaa 27.3 maalmood. Dayaxa inuu saas dhulka ugu soo wareego oo hal wareeg oo dhammaystiran intuu ka bilaabo saan u soo wareego oo mar kale ku soo noqdo meeqay ku qaadanay waxay ku qaadanay 27.3 maalmood ay ku qaadanay ama 27 maalin 7 saac iyo xoogaa daqiiqada ayay ku qaadanaysaa wareeg dhammaystiran. Laakiin maadaama uu dayaxa intaas ku soo wareego sidaan wada ognahay bisha dayaxa ama bilaha dayaxa waxay badanaa yihiin 29 maalin ama 30 maalin ay gaaraan. Haddaba sidee arrintaas ku timid oo 29kaas maalin intee ka timid maadaama uu dayaxu wareegga dhulka ku soo wareegayo ay tahay 27 maalin. Muuqaalkeena arrintaas ayaan ku sharxaynaa. Waxaan rajeynayaa inaad si fiican u dhuuxi doontiin macnaha muuqaalkan. Waa mahadsantiin. Ila daawada. Bismillaah. Wareegga dayaxa marka hadda si aan u fiirino waxaan calaamaysaynaa calaamadda jaalaha waxaan saaraynaa dayaxa meeshii hore oo uu joogay iyo inta maalin ay ku qaadanayso. Maalmaha waxaa ka xisaabsanaynaa meeshaan oo day ay ku qoran tahay 0. Marka dayaxa wuu soo wareegaa meeshaas ayaan la soconaynaa kor waxaan fiirinaynaa inta maalin ay ku qaadanayso dayaxa inuu booskan ka tago oo isla booskan uu ku soo laabto wareeg dhammaystiran intuu u sameynayo inta maalin ay ku qaadanayso ayaan fiirinaynaa. Ila daawada. Wuu socdaa dayaxa soo jeedin wareegii marka uu kaamilmay marka saa u jeedaan meeshaas oo falarta anigu aadiyay maalmaha uu dayaxa wareeg dhammaystiran ku soo sameynayo goobadan imise ay noqonaysaa waxay noqonaysaa 27.3 maalin ayay noqonaysaa. Intaas waxaa la rajeynayaa inay ila fahanteen. Hadda marka waxaan u gudbaynaa qaybta kaleeto. Hadda waxaan baranay dayaxa inuu soo wareego oo wareeg dhammaystiran ku sameeyo dhulka waxay ku qaadanay 27.3 maalmood. Mahadsantiin. Qaybta kale u gudbaynaa. Hadda waxaan fiirinaynaa wax loo yaqaano synodic month ama dayaxa markii uu yahay bilaha bisha dayaxa maalmihiisa sidee ku noqotay 29 ilaa 30 maalin sidee ayay ku noqotay ayaan fiirinaynaa. Marka si aan arrintaas u ogaano horta waxaan rabnaa inaan ogaano dhulka sida caadiga wuxuu ku wareegaa hareeraha cadceedda. Dayaxana wuxuu ku wareegayaa hareeraha dhulka. Dhulka markuu dayaxa ku soo wareegayo isigana waa dhaqaaqayaa. Aan fiirino muuqaalkan. Saddexdan shaybo dhulku waa wareegayaa dayaxina wuxuu ku wareegayaa hareeraha dhulka. Marka dayaxa si uu u noqdo dayaxa markii uu cusub yahay wuxuu joogaa inta u dhaxayso qoraxda iyo dhulka. Leenkan ku aadan yahay dayax markuu cusub yahay. Okay. Dayaxa markaas waxa way markuu cusub yahay ama markii ay bisha bilowday waaye. Booskan ayuu joogaa. Okay. Maadaama uu booskan joogo dayaxa si uu isla booskan ugu soo laabto oo mid cusub oo u noqdo waxay ku qaadanay 29 maalin. Hadday waxa soo sheegnay wareegga dhulka waxay ku qaadanay 27.3 maalin. Laakiin dayaxa si uu u noqdo mid u dhaxeeya qoraxdan iyo dhulkan oo booskan ku jiro. Booska markuu dayax ku jiro oo u dhaxeeyo qoraxda iyo dhulka maxaa loo yaqaanaa dibbad ama dayax markuu cusub yahay loo yaqaanaa. Si uu xaaladaas mar kale ugu soo noqdo waxay ku qaadanaysaa 29.4 ama 5 maalmood ayay ku qaadanaysaa. 29.5 maalmood ay ku qaadanaysaa. Sida ay ku dhacdana muuqaalkan ayuu ku arkaynaa. Hadda saa u jeediin dayaxa wuxuu u dhaxeeyaa dhulka iyo qoraxda ayuu u dhaxeeyaa si toos ah. Hadhow si markii uu soo wareego waxaa la rabaa haddana si uu dayax cusub u dhasho ama bishii ay u noqoto mid bilaab inay soo dhex gasho inta u dhaxayso qoraxda iyo dhulka.
hadda meeshaan aan calaamaysano oo ah inta u dhaxayso qoraxda iyo dhulka inuu dayaxu joogo. Waxaan rabnaa si ay bisha caadiga u noqoto mid cusub in ay timaado inta u dhaxayso qoraxda iyo dhulka. Dayaxu wareeg dhammaystiran loo sameeyay laakiin waaga ma joogo meel u dhaxayso qoraxda iyo dhulka. Maalmahana waa 27.3 maalmood oo qaadatay. Laakiin dayax cusub ama dayaxa inuu noqdo dibad waa inuu imaadaa inta u dhaxayso qoraxda iyo dhulka. Markaas muxuu u baahnaa maalmo dheeri ah. Maalmahaas waa imisa? Waa 2 maalmood oo dheeri ah ayuu u baahnaa. Hadda ayaan fiirinaa isha ku haya adiga meesha niitid meeqay noqonay markuu dayaxa booskiisii hore ku soo laabto meeqay noqonay 29.5 maalmood ay noqonay. Waana sababta maalmaha bisha caadiga ah ay u yihiin 29 ilaa 30 maalmood ay u noqdaan. Waa intaas. Waxaan rajeynayaa inaad fahanteen oo aad kala ogaateen farqiga u dhexeeya wareegga dayaxa iyo maalmahaas kale. Mahadsanidin.